soo dhawaada saaxiibayaal waxaan bilaabi doonaa taxane cusub taxanahaas aan ugu magac darnay Saabir iyo Samiira haddaba inta aynaan taxanaheena bilaabin waxaan ka codsanaynaa inaad like saarto muuqaalka lana wadaagto asxaabtaada mahadsanid Saabir waa wiil aad u qurux badan akhlaaq iyo diin intaba leh wuxuu ahaa wiil dadaal badan hooyadiisna waxay dhimatay asagoo 10 sano jir ah aabihiisna ma guursanaa kale xaaskiisii markii ay dhimatay kadib waxa uu go'aansaday inuu wiilkiisa si wanaagsan u korsado kuna dadaalo waxbarashadiisa iyo mustaqbalkiisa Saabir waxbarashada waa uu ku fiicnaa aad iyo aad waliba markuu dhameystay waxbarashadii dugsiga sare kadib waxa uu bilaabay inuu dhigto college uu caafimaadka ka baran jiray muddo 1 sano ah kadibna waxa uu bilaabay jaamacad balse aabihiisa wuxuu lahaa dukaan yar oo uu ku dabari jiray quudulyoomkiisa iyo nolosha isaga iyo wiilkiisa Saabir xaaladda aabihiisa iyo jaamacadiisa way isbixin weysay wuxuuna go'aansaday inuu culeyska ka khafiifiyo aabihiisa wuxuuna bilaabay inuu shaqo raadsado wuxuu shaqo ka helay meel farmasho ah bishii wax yar ayaa laga siin jiray sidaas ayuuna ku dabari jiray jaamacadiisa iyo shoppingkiisa halka dukaanka waxa laga helana meel la dhigi jiray qaarna la cuni jiray waxay ahaayeen famil Ilaahay ku xiran oo xalaal quudato ah salaadana xifdiya waxay xaaladda sidaas ahaataba maalin maalmaha kamid ah asigoo farmasho ku jiro ayaa waxa soo gashay gabar qurux Ilaahay u dhameystiray indhihii arkaana aysan ka jeesan karin qalbigii dameer lehna uu hore ka jeclaanayo waxay lahayd soo jiidasho indho qurxoon cod khafiif ah oo aad u macaan hadal dabacsan oo aad ka dareemayso inay tahay qof naxariis leh waxay rabtay in farmashiga ay daawo ka iibsato waxayna ku tiri aboowe daawadan ma heli karaa waxay u dhiibtay warqad ay ku qoran tahay daawada magaceeda Saabir uu akhriyay warqadii waxaana ku yiri haa walaal way taalaa qiimaheedana waa $2 waxay ku tiri isoo dhiib nambarkaagana isii ayay ku tiri markuu nambarka siiyay ayay u tuurtay lacagtii wayna iska baxday saacado kadib Saabir shaqadii ayuu ka baxay wuxuuna soo aaday xaafadoodii aabe ayuu salaamay kadibna waxa uu sii gudbay qolkiisa Saabir fikir ayaa galay waxa mar walba dhagihiisa ka yeerayo waa codkii macaana ee naxariista lahaa iyo sida asluubta lahayd u hadlaysay gabadhii uu maanta soo arkay quruxdeeda ayaa hortaagan markuu damco inuu nambarkeeda soo bixiyo oo uu waco wuxuu haddana isdhaxaa meeshu waa ganacsi shaqaale ayaadna ka tahay mana ogid qoftan in la qabo iyo in kale shaqadaada ha ku dheelin balse Saabir maskaxda ayay ka mashquulisay ka fikirkeeda waxay sidaasi ahaataba waqtigana uu iskuro waxa la gaaray subaxii labaad Saabir sidii caadada u ahayd ayuu u aaday shaqadiisa aad ayuuna u fakiraa wuxuu dareemay inuu qoftan u baahan yahay ayna tahay dooqiisa iyo qofku ku hamin jiray wiligiis balse wuxuu lahaa rajo inuu maalin dib ula kulmi doono ku dhawaad muddo bil ah ma uusan arkin nambarkeedana wuu hayaa laakiin shaqadiisa ayuu absadaa ma oga wuxuu kala kulmi doono anshax daro ayayna la noqotay inuu dabagalo maalin maalmaha kamid ah asagoo u socda jaamacadiisa oo saaran gaari ayuu daaqada gaariga si lama filaan ah uga arkay gabadhii uu laamiga dhinac kale ka taagan waxa uu u qaylin sidii nin soo baraarugay jooji baabuurka ayuu hal mar la soo booday darwalkii ayaa isla markiiba joojiyay gaariga orod ayuuna ugu degay laamiga ayuu soo raacay wuxuuna ag istaagay gabadhii laakiin indhaheeda markay isku dhaceen hadalkii ayaa ka lumay waxa uu sheegana waa uu garan waayay isla markiiba waa uu soo jeestay balse intay dhoola cadeysay ay ku tiri la soo qaybta xigta ee sheekada